maxay ahayd kacaankii Oktoobar wuxuu ahaa mid uun iska laablakaca sida adduunkaba ka dhacda wuxuu ahaa midka la yidhaahdo kacaanka hagaajinta ama reformist waxa la yidhaahdo miyuu ahaa wuxuu ahaa kacaan maslaxadoon ah wuxuu ahaa kacaan dad gaar ah oo khaasa u dan leh ama u danaynaya muxuu ahaa ujeedadiisu maxay ahayd wax walba wax kacsha bay leeyihiin sanad waatan tirahda biyo fadhiya biyo socdaa kacsha yani maxaa u sababahaa inuu kaco ama dhasho waxaa kacshay dareen bulsho dhibaatooyin jiray ka dhashay dareenkaas bulshadeed oo la xiriiray nolosha dadka nabadda iyo ammaanada qofka dhaqaalaha dadka nabadgelyada saanu iri dadka maamulka qaranka heer kasta ee la xiriira nolosha dadka dhibaatooyinkaasu lowkan aan jirin ma qabo kacaan inuu dhalan lahaa haddii ay si habsami ah u socon lahayn si habsamidu tunay noqon kartaa waxa weeyaan sida dadweynuhu uu doonayo oo uu u doonayo noloshiisa xataa haddaan 100% la dhergin karin haddana shaka kuma jiro waa inuu dadweynuhu ku qancaa ilaa heerka uu qabadkaagu uu yahay amaad u qabanaysaa inuu yahay mid qancin kara inaadan waxba la harin laakiin ay ku muuqato inaadan ka kordhin karin intaas adigu aad samaynayso hadduu sabido dadweynuhu oo ah quwadda runta ah isla markaasna sabab u noqoto mar kastaba waayaha iyo isbeddelka maamul ama mabda bay bido xagaro inay jirto huhaa kastoo la abuuro ma helaanin inta wadataa huwaadaasu ciidan xoog leh oo ay iyagu hor cararaan ka gadaalna ku gaaraan danahooda way samayn karaan matalan bootin ama khiyaano waxa laakiin haddana weligood najaax dheer ma gaaraan mar haddii aynan arrintaasu ku qotomin danta dadweynaha haddaba arrintaasu markaan soo soconno waxaynu isku daynay inaynu dareenno ama garanno amaba aynu farta ku taagno tilmaansanno mid weliba si u kala daran yihiin dhibaatooyinka markaa jiray isla markaasna aanu doonno xalli inagoo kolnaba ka tallaabsanaynin ama ayan suuraba gelin in laga tallaabsado awooddeenna dhaqaale awooddeenna garasho siyaasi awooddeenna amuuraha badan ee nolosha dadka la xiriirta intii aynu soo soconnay ama markuu kacaanku dhashay waxaa la dhigay barnaamijkii uu kacaanku socon lahaa iyo ujeeddooyinkiisii himiladiisii waa tan la xusaa waraaqdii koobaad ee kacaanka waxaa ku yaallay qodobo tilmaamaya himiladeenna gudaha ama arrimaheenna gudaha himilada aynu ka lahayn iyo arrimaha dibadda himiladii aynu ka lahayn intaba adduun weynaha xiriirkeennu la lahayn iyo wixii la halmaala waajibka kacaanku marka wuxuu ahaa inuu buuxiyo waraaqdaas koobaad ee maalintii horreysaba lasoo bandhigay shuruudihii ku yaallay ama ballanqaadyadii ku yaallay inuu buuxiyo buuxintaasu ama ballanqaadyadaasu iyo qodobadaasu uma dhacayn marnaba un isaga qoran meesha laakiin waxaa loo arkaya markii la dhigaayay danta ummadda soomaaliyeed ay kaga kici kartay dhibaatooyinkii ama isaga dulqaadi kartay dhibaatooyinkii jiray kuna gaari kari lahayd himilada bini aadamka adduunka ku nooloo idilu uu higsanayo ee ah nolol san dhaqan san nabad ballaaran gaaritaan hawada ama damaca dadka bini aadamka ee xaqa ah markaan soo taabanno kuwaas qodobada ahaa gudaha haddaan nimaadno waa tii waktiba waktiga ka dambeeya la isku dayaayey in dad fara badan laga qaybgeliyo maamulka qaranka arrinta waxa weeye inaynu ka
gaajada, waxa weeye inaynu ka xorowno jahaalada, waxa weeye oo aanu ka xorowno aqoon darrida, waxa weeye inaynu ka xorowno cudurka, waxa weeye in dhowr qof ay eegto waa xaaraan, waxa weeye dadka soomaalida oo dhanu inay gaartaa noloshu. haddaynan taas gaarin xor maahin, meeleedu waxa weeye inaad dad aadamaya aad u baahan tahay. mar haddaad u baahan tahayna xor maahin. xornimadaadu waxa weeye markaad baahi beesho weeyaan. calan keliya oo meel ka wushaa xornimo lama yidhaah. guulaysigu wuxuu ku fadhiyaa dhaqaalaha, wuxuu ku fadhiyaa mabaadi'da markii lagaa dilo, wuxuu ku fadhiyaa markii qoomiyada lagaa dilo, wuxuu ku fadhiyaa markii mindi laysugu kaadhibo laysku kaadiro. kuwa ka indha xiran oo indhahooda iyo maskaxdooda ay ka daboolan tahay nalka weyn ama nuurka weyn oo ifahaya oo soomaalida u ifahaya oo xornimadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo gobonnimadiisa gaarsiinaya, kuwa ka maskaxdooda iyo qulubtooda iyo indhahoodu ay ka badan yihiin oo waxa xukunkooda ka arkaya, kuwaasu waa jooga. isticmaalna lacagtiisii badnayd waa haya, mucaamiraadkiisii weynaa waa haya, weerarka adduunka isku haya waa muuqataa. waxaan idinka digaa soomaaliyeed, aanan gulmada aynu ku noqonno ama aynu daafacaan dalkeen. annagu haddaanu nahay revolution amaba dadka armed forceska ah, waxaan idinka ballan qaadaynaa ilaa bidixda ugu dambaysa dhiigganaga inaanan dib u noqonin waddada xalaasha oo aanu hayno, inaanan dib uga noqonin ilaa soomaaliya dhan ay ku xorowdo. soomaaliya meel kastaba joog, waxaan kuu soo jeedinayaa hurdadii layna seexiyey aan ka toosno, aynu u toosno nolosheenna, midnimadeenna, midanimadeenna, waxqabsigeenna iyo dhaqaaleenna. sida aad giddigaygu xusuusan karaysaan, isticmaalkii dalka haysan jiray wax alla wax uga tegay ma aynan jirin. dhaqaalo waxba kama hagaagsanayn, wax u diyaar garaysnaa talagal loogu talagalay in hore u kaciisa lagu dadaalo. waxay ahayd caado isticmaalku inuu dadka guulaysto, dagaalka uu kala dagaalamo xagga dhaqaalaha iyo xagga cilmiga iyo xagga caafimaadka intaba. nacam, inuu u diido tacliin dheer inay gaaraan, inuu u diido xoolo badan inay yeeshaan, inuusan danayn caafimaadkooda inay bataan isaga oo aan danka lahayn. waxaa weheliya inaanu ku dagaalgalno sidii aynu uga bixi lahayn wax aqoon la-aanta, oo giddigeennu ma ay dhici karto inaan maalin wax ku wada baranno, laakiin ilmaheenna inaynu la doonanno inay wax bartaan, aynuna gaarsiino waqti ay ana isfahmi karaan oo aqoontaas ay barteen ay isku fahmi karaan, oo ay ku fahmi karaan qoomiyadooda inay daafacaan, sharafkooda inay daafacaan, noloshoodana inay suubsadaan. waxay nala tahay, xaqiiqduna ay tahay, mabda'eennu uu ku dhisan yahay, siyaasadeennu ay ku dhisan tahay in dalka kan gudnimada uu ka baxo. waxay nala tahay si uga bixi karaa inay tahay in ay kordho tacliintu, dhaqaaluhu inuu kordho, inuu kordho daafacaadiisu inay kororto. maxaa wacay haddaad beer abuurato oo aad hasho oo aad ku rafaado oo aad ood la-aan adoon oodin oo bahalkii dadka ka oodin aad tidhaahdo waa ii bixi, kuu bixi maysee tacabkaa khasaara ayuu noqon, ariga iyo xoolaha baa kaa cuni, tuuggaa kaala tegi. marka waa inaad xayndaab aan loo soo mari karin waa inaad u samaysaa si aad midhaha uga gurato. markaynu tacliinta iyo sancada iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha aynu kordhinayno waa inaynu u yeernaa xayndaab ku wareegsan oo cadowgu uusan soo mari karin, hadduu isku dayana uu eedahayo waa inaynu u samaynaa. waxaa ka mid a daafacaadda aynu u dhisayno oo qofkii kastoo innagu uu awood aynu u siinayno inuu ku helo awood uu ku daafaco dalkiisa, mar haddaynaan askar badan samayn karin oo dhaqaalaheennu inoo ogolay. taasuna ayan siyaasad fiican noqon karin. dhaqaalihii gunta ahaa inaynu ilowno, tacliimtii gunta ahayd inaynu ilowno, caafimaadka ummadeenna inaynu ilowno, hanuuninta ummadeenna kharaj ku fadhida inaynu ilowno, oo kulli askar noqonno, wada mushaariya, wada kharaj badan aynan suuro geli karin. marka waa inaynu dhisnaa mid la gees yaalla oo
biilihiina kala mida kharajkiina ka yar oo haysta gacantaana qorigiisa tanna ku haysta yaambadiisa iyo tolmada qalbiga. yaqaanadu xaqiiqduna ay tahay qoladii meel gaartayna weligeed ay ku gaartay waxa weeye dadka dhallinyarada oo dalku waa inay maamulka la wareegaan weeyaan waxa weeye inay talada ka qayb galaan waxa weeye inay ka qayb galaan daafacaadda dalkooda waxa weeye inay ka qayb galaan tacliinta kordhinta dalkooda maxay qiimaha dheer aanu u siinaynaa ummadda dhallinyarada caafimaad qabta waxaan u siinaynaa iyagu caafimaad bay qabaan iyagu isticmaar lama soo cabin iyaga isticmaar ma soo dhisanin iyaga muxuu ahaa lama soo dhagrin iyaga lama beenbeenaynin iyaga lama bakshiish lama siinin iyaga muxuu ahaa dhiig ma qabaan oo dadkoodii ma ay dilin iyagu ma ay dhicin iyagu ma ay xadin iyagu nadiif weeyaan
لو يدي محمد سياد بريه وحيانا بيوضع قوم قطعي يحينا كو توابي كده طن هذا الكوميك كوري الكلام سلاهي هاي وحيالا وهوينو كعانكو قطعي بل waxaan uu haddaan mid ka taabto midlee waxa ugu weyn waxay noqon karaan dadka soomaalida oo awalka hurday inuu hurdada ka toosay dadka soomaalida oon awalka iyaga dad ahaan awoodooda iyo dalkooda khayraadka ku jira iyo iyaga naftoodu waxa ay isu yihiin inay maanta garteen haddaan midnadu ka soo tilmaamana matalan waxaan anuu garan karahayaa soomaalidu in ay xagga thaqaafada ama xagga tacliinta aqoonta inay ku xirnaayeen ajnabi oo dawlado kaleeto afkood iyo tacliintooda ay ku xirnaayeen laakiin markii af soomaaliga la hirgeliyey degmadiisa in ay u noqdeen dad ahaantoodii qoomiyad ahaantoodii taayna ay u sabab noqotay inay gartaan dad ahaantooda ama taariikhdoodii ama hiddahoodii ama dhaqankoodii inay yacni fahmeen taayna ay quwad weyn u keentay qoomiyad ahaantooda dad ahaantoodana u keentay